15 July 2020 ciwaanka Twitterka Elon Musk ayaa la soo dhigay qoraalkan ii soo dir $1 oo Bitcoin waxaan kuu soo celinayaa $2,000 fursaddan waa 30 minute oo kaliya qoraalka waxa la socday ciwaan wallet address Bitcoin oo macnaheedu ay tahay lacagta ciwaankaas lagu soo diro sidoo kale isla qoraalkan waxa la soo dhigay ciwaanada waaweyn ee Twitterka sida Apple, Uber, Jeff Bezos, Bill Gates, Barack Obama, Joe Biden, Kanye West iyo ciwaano kale oo dad caan ah ay leeyihiin isla markaasna shirkadda Twitter waxay joojisay shaqadii waxayna calaamada buluuga ee verification-ka ee kala laabatay dhammaan dadka haystay si loo ogaado cilada meesha ay ka jirto. We're watching this story. Several high-profile Twitter accounts appear to have been hacked. Being called the biggest security incident in Twitter's history. It's all part of a Bitcoin scam. waxaa la jabsaday Twitterka waxaana gabi ahaan la wareegay gacan ku haynta daatada shirkaddan waxaa jabsaday wiil yar oo 17 jir ah oo laptopkiisa ku isticmaalayo sariirta dusheeda haddaba waa kuma wiilkan yarka ah ee ka yaabsaday caalamka waxay soo ogaadeen noloshiisa hore inuu ahaa scammer internetka dadka ku dhaco hacker ciwaanada jabsado lacaga malaayiin dollar oo Bitcoin ah ayuu sidoo kale dhacay ilaa iyo 12 jirkiisa ayuu ku soo dhex jiray howlahan haddaba sidee wiil intaan la eg waxyaabahan oo dhan uu sameeyay sidee ayay ugu suurta gashay inuu jabsado mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn internetka muuqaalkeena ayaan ku faahfaahinaynaa waa Cabdiqafaar Gamaadiid oo idin leh meel walba oo joogtaan soo dhawaada jabsashadii taariikhda abid ugu weyneed ee internetka. Breaking news tonight on what appears to be a major security breach at Twitter and seemed to target high-profile users with millions of followers. Just breaking, Twitter says it's investigating the apparent hacking of many high-profile users. Graham Ivan Clark wuxuu ku noolaa Florida wuxuuna ahaa arday dhigto iskuulkan waalidiintiisa waxay kala tageen asagoo 13 jir ah laakiin wuxuu la noolaa hooyadii oo la la dhacayso biilka noloshooda iskuulka uu dhigto waa public oo dawladda ayaa iska leh waana lacag la'aan sidaas oo ay tahay wuxuu ahaa mid mar walba ugu faana ardayda iskuulka waxyaabaha qaaliga ah sida dharka brandada kala duwan saacadaha kabaha iyo gaariyaasha ugu dambeeyay waliba kuwa sportkaaga ardayda iskuulka oo la dhigta attention-kooda ayuu soo jiidan jiray kuwa ugu fahmada fiicanna imtixaanka ayay u qashi jireen asagoo siin jiray lacag wiilkan hadday waalidiintiisa maalqabeen ahaan lahaayeen muxuu u dhigtaa iskuulkan public ah oo lacag la'aanta waa su'aasha ay isweydiinayaan ardayda iyo macallimiinta Graham sidaan soo sheegnay wuxuu la noolyahay hooyadii kadib markay aabihii kala tageen hooyadii maalinkii oo dhan waxay ku maqan tahay shaqo asagana wuxuu ku mashquulsan yahay ciyaarta geemamka kala duwan wuxuuna waqtigiisa oo dhan iskugu geeyay inuu laptopkaas hor fadhiyo geemna dheelo geemka loo yaqaan Minecraft ayuu aad u ciyaari jiray YouTube channel ayuu furtay meeshaas ayuu soo dhigi jiray muuqaalada uu ka duuba geemka waxay isbarteen asxaab ay geemkan isla ciyaaraan oo nolosha geemka ayuu si fiican u dhaxgalay iskuulka ayuu ka imaadaa wax kale uma fadhiisto laptopkiisa ayuu toos u aadaa geemkan iyo asxaabtaas isla ciyaarayaan ayuu waqtigiisa oo dhan iskugu geeyay kadib wuxuu bilaabay inuu iskaam gareeyo dadka geemkan dheelo asagoo iskaga dhigaya qof wanaagsan oo caawinayo ciwaanadooda ayuu jabsanayaa kadibna ciwaanadaas ayuu dib u sii iibinayaa YouTubekiisa ayuuna xayisiin ugu sameynayaa asagoo dhahayo qofka ciwaan iib ah u baahan aniga ha ila soo xiriiro aniga u hayo They work together and they scam like my gun capes, like they sell my gun. You hit him off. It's not your first time DDoSing someone. I only believed it because of his YouTube channel. laakiin waxaa fashiliyay oo ka hortagay wiil YouTuber ah oo asagana ciyaara geemkan muuqaal ayuu iska soo duubay wuxuuna sheegay Graham inuu yahay tuug ciwaanada dhaco ciwaanadaasna dib u sii iibiyo Graham meeshaas ayuu ku waayay asxaabtiisa waxaana laga mamnuucay gabi ahaan geemka Minecraft maadaama uu ciwaano badan ka jabsaday asagoo ka argudanaya YouTuberkii fashiliyay ayuu u dhacay YouTubekiisa ayuu jabsaday intaasna uga muuharanay wuxuu jabsaday 3 email oo uu lahaa wiilkaas So Open ended up getting banned off of like all these servers after I showed the proof in my videos of how he was scamming. And then that is when I ended up getting hacked. hadda waxaa laga mamnuucay geemkii uu dheeli jiray oo waqtiga badan ku bixin jiray wuxuu ku mashquula ma haysto meel cidla ayuu ku soo dhacay laakiin wuxuu u wareegay jabsashada iyo inuu scam ku sameeyo website-yada kala duwan ciwaanada dadka ayuu soo jabsanayaa kadib wuxuu ku rakaatenayaa inay lacag bixiyaan hadday rabaan in ciwaankooda ay dib u helaan meeshaas ayuuna lacaga xoogaha ka sameeyay wuxuu ku soo biiray website la dhaho OG Users webkan wuxuu ahaa goob wax lagu kala gato waxaa la aasaasay 2017 ujeedkana wuxuu ahaa in dadka ay ka gataan username ay ku isticmaalaan social media ama website-yada kala duwan hadduu qofka u baahdo username unique ah oo hore aan loo soo isticmaalin webkan ayuu ka dhaxelayaa haddaba webkan wuxuu u shaqeynayaa qaab sharciga waafaqsan laakiin waxaa ku soo batay dad scammers ah intay ciwaano soo dhacaan ayay meeshan ku iibinayaan Graham shaqadiisa ayaa meeshan ka socoto hakarnimada qaabka ugu badan ee uu isticmaali jiray waxay ahayd waxa loo yaqaano SIM swap scam haddaba tuugada wax jabsato badanaa waxay adeegsadaan SIM swap scam
nidaamkan ay wax ku jabsadaan sidaan ayuu u shaqeeyaa haddii ciwaan aad samaysato ciwaankaaga wuxuu ku xiriirsan yahay taleefon nambarkaaga inta aadan ciwaankaaga log in dhihin oo aadan gelin waxaa nambarkaaga ku soo dhacayo confirmation number nambarkaas ayaad gelinaysaa ciwaankaaga kadibna toos ayaad u gelaysaa tani waxaa loo yaqaanaa two step verification haddaba hakaaska waxay helayaan confirmation numberka ku soo dhacayo taleefonkaaga meeshaas ayayna kula wareegayaan ciwaankaaga ayagoo u dhacayo emailkaaga wiilkan Grahamna nidaamkan SimSwap ayuu isticmaali jiray ciwaano badan oo Twitter ah ayuu ku soo dhacay kadibna wuxuu ku dhex iibin jiray OG users wuxuu horumarin ku sii sameeyay xirfadiisa hakarnimo wuxuuna bilaabay inuu beegsado dadka hantida leh sida kuwa lacagaha Bitcoin-ka haysto maadaama hadda ay u sahlan tahay jabsashada emailka asagoo adeegsanayo nidaamka aan soo sheegnay ee ah SimSwap wuxuu booqday accountiyada Twitter-ka ee crypto exchange waliba kuwa ugu caansan ee Binance iyo Coinbase wuxuuna ka dhex baaday goobay dadka followga u ah ciwaanadan ee soo bandhiga dhaqaalahooda ama ku faano inta Bitcoin ay haystaan badanaa dadkan waxay isticmaalaan magacyadooda saxda ah iyo email-adooda laakiin dhinaca kale Graham waxay u tahay fursad uu si sahlan ugu jabsan karo macluumaadkooda inta uusan qofka lacagaha ka jabsan wuxuu ku sameeyaa program la dhaho doxing asagoo ogaanayo dhammaan macluumaadka qofkaas magaciisa oo dhameystiran meesha uu degan yahay meesha uu ka shaqeeyo dhaqaalihiisa iyo wax walba oo ku saabsan qofkaas markaas kadib ayuu go'aan ka qaataa inuu yahay qofkaas taagadkiisa ninkan waxaa lagu magacaabaa Greg Bennett wuxuu maalgashiyo kala duwan ku leeyahay shirkado sidoo kale wuxuu haystaa malaayiin Bitcoin 15 Abriil 2019 Greg wuxuu joogay xafiiskiisa shaqada taleefankiisa asagoo isticmaalayo ayaa hal mar waxaa tagay networka taleefanka la yaab ayay ku noqotay oo macquul ma isan ahayn in networka sidaas fudud uu ku tago sababtoo ah xafiiska waxaa ku xirnaa network high speed ah goobtaasna shirkado waaweyn ayay xafiisyadooda ku yaaleen oo si sahlan networka kuma tagi karo emailka ayuu isku dayay inuu galo laakiin uu ka diiday wuu ku celceliyay laakiin mar walba uu isku dayo passwordka ayaa khaldan bitcoinkiisa ayaa laga dhacay lacag dhan $1 milyan. Imagine you lost your calendar, you lost your contacts, you lost all your email history, you lost all your kids' photos, all your videos you've ever taken. Imagine you've kind of lost all your life up to today. And that's what it felt like. Graham intaas kuma uusan joojin wuxuu u gudbay inuu ka ganacsado daroogada taasoo ugu dambeyntii ku sababtay saaxiibkiis inuu ku dhinto israasaaseen dhex martay asaga iyo koox gaangis ah dhacdadaas kadib iskuulka ayaa laga soo ceeriyay guriga hooyadii ayuu ka tagay wuxuuna gatay apartment dhaqaalaha iyo hantida uu leeyahay ayuu ku soo bandhigi jiray Instagram-ka waxayna dhaqaalaha iskugu faani jireen dhalinyarada kale ee ayagana hakaaska ah keebaa lacag badan laakiin dhinaca kale booliska waxay baaritaan ku hayeen Graham FBI-da waxay soo ogaadeen lacagtii Bitcoin-ka ahayd ee laga dhacay ninkan odaga ah ee Greg inuu dhacay Graham waa la soo qabtay waxay heshiis kula galeen inuu celiyo lacagta $1 milyan lacagaha kale uu haystaan oo u madax banaanaan doono oo aanan la weydiin doonin heshiiskaasna Graham wuu aqbalay laakiin meeshan u fiirso sababta aysan FBI-da u xirin Graham wuxuu ka yaraa da'da 18 sano faldambiyadiyada uu gacanta kula jireen waxay ahaayeen scam iyo inuu internetka wax ku dhaco haddaba dambiyadan hacking iyo scamming waa kiis ay qabtaan federaalka oo kaliya maadaama Grahamna uu ka yaray 18 sano wax sharci ah ma qabanayo The law may need to be changed to allow the federal system to catch up with the reality that you have younger kids getting involved in online scams, crypto scams that really merit more serious prosecution and punishment, which federal law doesn't currently allow. Graham wuxuu ogaaday inuusan sharciga qabanaynin laakiin 8 bilood oo kaliya ayaa uga dhiman inuu gaaro da'da 19 sano wuxuu ku fakiray 8daas bilood inuu ku noqdo bilyaneer oo uu ka faa'iideysto jaaniskaas yarka ah ee u haray wuxuu bilaabay qorshihii uu ku jabsan lahaa shirkadda Twitter-ka jabsashadii abid ugu saameynta badneed ee internetka 15 July 2020 wuxuu gacanta ku dhigay 130 ciwaan oo Twitter ah waliba kuwa ugu saameynta badan Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, Apple, Barack Obama, Joe Biden, Floyd Mayweather iyo kuwa kale oo aad u fara badan dhammaan ciwaanadan wuxuu soo dhigay hal qoraal oo tweet ah qofkii soo dira Bitcoin wuxuu helayaa 2 jibaar dadka inta ugu badan way fahmeen in Twitter-ka la jabsaday laakiin sidaas oo ay tahay 400 qof ayaa waxay direen Bitcoin May 2020 ayuu soo bilaabay qorshaha uu ku jabsanayo Twitter-ka waagaasna waxaa jiray COVID-19 oo dhammaan shaqaalaha tech companies ayagoo guryahooda jooga ayay shaqeynayeen Graham fursadaas ayuu ka faa'iideystay
asagoo halhal u wacayo shaqaalaha Twitterka wuxuuna iskaga dhigayaa inuu yahay kooxda IT-ga u qaabilsan Twitterka wuxuu u sheegayaa shaqaalaha inay jirto cilad wuxuuna ka codsanayaa ciwaankooda laakiin shaqaalaha kuwa ayaa ku fahmaya inuu yahay scam isla markiiba taleefanka ayay ku jirayaan shaqadooda ay sii wadanayaan laakiin sidaas oo ay tahay qaarkood ayuu gaadaya oo waxay u fasaxayaan ciwaankooda meeshaasna wuxuu ku helay daatada lagu galo Twitterka sidaas ayuuna gebi ahaan kula wareegay dhammaan macluumaadyada Twitterka 2 asbuuc kadib FBI-da waxay soo qabteen Graham kadib markuu fashiliyay wiil 19 jir ah oo ku nool UK oo asagana wax ka ogaa qorshahan lagu jabsanayo Twitterka kama uusan qayb qaadan laakiin qorshaha ayuu ogaa Graham waxa ku weheliyay jabsashada Twitterka wiil 2 sano ka yar oo waliba aad uga cilmi badan dhinaca hakarnimada laakiin FBI-da ma aysan soo bandhigin muuqaalka sawirka wiilkan maadaama uu aad u yar yahay midda kale ayadana la yaab kale markii ay kiiskiisa maxkamadda xukminaysay waxay ku wada hadlayeen Zoom maadaama aanan la isku imaan karin oo COVID-19 uu waqtigaas jiray qolkii Zoom-ka ay ku wada hadlayeen ayaa la jabsaday waxaana lagu dhex furay qaylo iyo music waliba waxa laga dhex shiday muuqaal boon ah Hello, Your Honor. Can you smoking on that Remy pack? Please, can you hear me, Your Honor? Yo, Your Honor. Why would... Graham maxkamadda waxay ku xukuntay 3 sano oo xabsi ah wuxuu ku badbaaday sharciga Florida u dagsan qofka hadduu ka yar yahay 22 sano oo uu geysto faldambiyeedyo waaweyn maxkamadda waxay siinaysaa fursad ah in 2 sano lagu xukumo noloshiisana uu dib ugu laabto muuqaalkeena intaas ayuu noogu egyahay haddii aad nagu cusub tahay soo dhawow muuqaalada sidaan oo kale ahna haddii aad ka hesho muuqaalka like saar waqtigaagana waad ku mahadsan tahay